لا تنحصر الحرب في أوكرانيا في ساحات المعركة على الأرض فقط، بل تدور حرب إعلامية ضارية منذ بدء غزو روسيا لجارتها أواخر الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دمان daawadayaasheeda sharafta leh. Dhammaantiin sida wada ogtihiinba waxaa jiray in ruushku beryahan uu adduunka fara baas ku hayo, taasoo uu reer galbeedka awooddiisa dhigi jiray ama awoodda ku faani jirayba uu dhinaca kale u gediyey. Haddaba waxyaabaha iminka uu isticmaalayo ama falsafooyinka uu isticmaalayo ee ruushku uu kaga guuleystay wadamadii reer galbeedka iyo ciddii xulafada la ahaydba ayaa waxay ahayd in markii hore uu lacagtoodii yidhi ha lagu iibsado, lacagtiisa uu yidhi ha lagu iibsado shidaalka uu soo saaro dalkaasi ruushka, taasoo sababtay markii hore qiimo dhicii lacagtiisa ku iman lahaa inay kor u kacdo. intaa ka bacdi haddaba waxa uu isticmaalay iminka falsafo cusub, taas oo ku tacalluqda xorriyad qowlkii ay ku taami jireen wadamada reer galbeedka. Haddaba waxaad wada ogeydeen wargeyskii ku yaallay dalka Faransiiska ee Charlie Hebdo, kaasoo soo saaray kartoon ama karikateer lagu aflagaadinayo nabigeena subanaa calayhi salaatu wasalaam, oo la leeyahay markii dambe ay ka hadleen ama laga mudaharaadeen ay dhaheen waa arrin xorriyatul qowl. Haddaba si uu taas u tuso inaanay xorriyatul qowlkaas jirin oo uu reer galbeedka iyo muslimiinta u dhex dhigo cadaawad, maadaama markooda hore cadaawad dhex taala, laakiin reer galbeedku ay muujiyaan in aan cadaawad aanay u hayn ummadda muslimiinta, iyagoo dhanka kalena hantaaqa iyo dhibaato u geysanaya, ayaa ruushku waxa uu sameeyey sawir ayuu wuxuu ka sameeyey sawirka idin muuqda ee shaashada saaray ee wuxuu ka sameeyey waxa samaysay safaaradda dalka ruushka ee ku taala Faransa, taasoo uu muujinayo Yurub oo qof xanuunsanaya ah COVID-19 oo ag yaala, iyo Mareykanka oo uu u bixiyey boqortooyada beenta, taasoo muujinaysa ihaanaysi iyo in maxay ahayd toolay uu aad u ihaanaysanayo wadamada waxaan leeyahay wadamada reer galbeedka. Haddaba si uu iyagoo taa ka jawaabayaan ayaa aad waxa uga xanaaqay dalkaasi ruushka, kaas oo maxay ahayd toolay safiirkoodii u yeedheen ka joogay dalka ruushka, arrintan aad uga hadlay oo yidhi wax loo dul qaadan kara maaha. Haddaba markaas ay halkaa arrintu marayso ayaa waxaa dhacay in dalka ruushku uu ujeedkiisii toos uu helo, iyo ujeedkuu socday uu ka hadlo oo dhaho waa xorriyatul qowl ayaanu ka hadlaynay. Charlie Hebdo hore waa kuu soo saaray karakteerkan oo kale ama kartoonkan oo kale, waa tii loogu tilmaamay markii muslimiintu kaceen inay dhaheen waa xorriyatul qowl. Haddaba iyadoo ay sidaa ay tahay ayaa uu yidhi haddii ayna xorriyatul qowl jirin waanu ka saaranaa oo aanay ka saareen boggoodii ama halka ay soo geliyeen baraha bulshada, hadday ahaan lahayd Twitterka, dhanka Twitterka ay soo geliyeen. Haddaba ruushku ayaa wuxuu isticmaalay falsafooyin kala duwan, taasoo uu ku wiiqayo wadamada reer galbeedka iyo xiriirkii kala dhexeeyay wadamada muslimiinta si ay isugu dhacaan, uuna muujiyo muslimiinta in marka arrin ay muslimiinta ka dhanan la sameeyo inay dhahaan waa arrin xorriyatul qowl, marka maxay ahayd toolay la sameeyo arrin kale oo iyaga kasoo horjeedana inay ka xanaaqaan oo dhahaan wax la qaadan kara maaha. Haddaba waxay ilaaween reer galbeedku markii sanadkii tegay 2021 ay lahaayeen Charlie Hebdo wargeyskaasi waxa uu soo saaray waa xorriyatul qowl. haddaba ruushka aynu wada daawana muuqaalkaas ay kaga hadlayso soo deysay warbaahinta BBC-da qaybteeda العربية. لا تنحصر الحرب في أوكرانيا في ساحات المعركة على الأرض فقط، بل تدور حرب إعلامية ضارية منذ بدء غزو روسيا لجارتها أواخر الشهر الماضي. خلال الأيام القليلة الماضية اقتحم رسم كاريكاتوري المعركة بين روسيا والغرب وتحديدا فرنسا. الرسم الكاريكاتوري نشرته السفارة الروسية في باريس على حسابها على تويتر، غردت مع طبعا الرسم الكاريكاتوري بين مزدوجين أوروبا عام 2022. يظهر هذا الكاريكاتير جثة أو مريضة على طاولة، يقوم رجلان يمثلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحقنها بالإبر. دعونا نلقي نظرة أقرب على هذا الرسم الكاريكاتوري. الجثة الراقدة على الطاولة مكتوب عليها أوروبا، أما الرجلان فيبدو أنهما في صورة طبيبين اسمهما إمبراطورية الأكاذيب بحسب الوصف في الرسم الكاريكاتوري،
الرايخ الأوروبي. يقوم الاثنان بحقن المريضة بحقن كتب عليها كراهية روسيا والعقوبات والنازية وكوفيد 19 وغيرها. السفارة نشرت هذا رسما آخر، لكن لا يمكننا إظهاره لأن البعض قد يعتبره نابية. طبعا تسببت الرسوم الساخرة في استياء كبير لدى فرنسا التي قامت باستدعاء السفير الروسي في باريس أليكسي ميشكوف. صرحت الخارجية الفرنسية في بيان قائلة: هذا الشيء غير مقبول، نحاول أن نبقي على قناة حوار مع روسيا، وهذه الأفعال غير ملائمة بالمرة. لكن عند سؤاله عن الرسومات أثناء مؤتمر صحفي له في بروكسل، رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن رسومات كهذه مرفوضة. هذه المنشورات غير مقبولة، ووزير خارجيتنا أظهر هذا بشكل واضح للسفير الروسي في باريس. نحن نؤمن بالحوار المبني على الاحترام، وأعتقد أنها غلطة وتم تصحيحها، وأتمنى أنها